shimbirkii yaraa ee Ilaahay u tasbiixsan jiray. Waxaa jiray shimbir yar oo Ilaahay maalin walba xusi jiray, weligiina aan ka daalin. Maalin maalmaha ka mid ah shimbirkii yaraa ayaa joojiyay xuskii Alle ee joogtada u ahaa. Malaa'igta oo ka warhaysay ayaa weydiisay Ilaahay subxaanahu wa tacaala, yaa Allah, maxaa aamusiyey shimbirkii yaraa ee maalin walba tasbiixsan jiray? Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ugu jawaabay, daaya wuu ii soo laaban doonaa, ma haysto cid aan aniga ahayn ee uu cawdo. Maalinkii dambe shimbirkii yaraa wuxuu ku istaagay laanta geedka. Malaa'igtiina waxay dhegaysteen xaalkiisa iyo waxa uu odhan doono. balse wuu hadli waayey. Intaas kadibna Ilaahay ayaa la hadlay oo weydiiyey, shimbiryahow, hadal oo ka hadal waxa laabtaada cadhiidhiga gelinaya. Waxa uu yidhi shimbirkii, yaa Allah, waxaan lahaa buul yar oo hoy ii ahaa oo aan ku nasan jiray weheshana jiray. Ilaahay waad iga dumisay ee maxaa dabaysha weyn u soo dirtay? Ilmo ayaa ku soo istaagtay shimbirkii, hadalkiina wuu sii wada kari waayey. Ilaan Ilaahay ayaa la hadlay. Malaa'igtii way foorarsadeen iyagoo ka fikiraya xalka xiga. Intaas kadib Ilaahay ayaa u jawaabay oo yidhi, waxaa jiray mas ku soo wajahnaa buulkaaga adigoo hurda. Marka waxaan amray dabaysha inay geedka ruxdo oo ay ka tuurto maska si aad ugu badbaado adiga. Maxaan balaayo kugu soo socotay kaa duway maadaama aan ku jeclaa, adiguna waad igaga fogaatay badbaadadaada awgeed. Ilmo badan ayaa shimbirkii yaraa indhihiisii ku timid, buuxisay samada. Waxauna yidhi, yaa Allah, ayaa kaa ogaalaya naxariis badan. Alxamdulilaah. Ha ka murugoon haddii Ilaahay kaa joojiyo waxaad jeclayd inaad noqoto ama kuu suurtagelin waayey waxaad ku haminaysay, maadaama aayaddan qur-aanka ay leedahay. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.